kulankan oo ahaa wadatashi ku aadan geedi socodka qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad oo wajigiisa koowaad maanta ka furmay magaalada Jowhar ayaa xubno ka socda wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya waxay la yeesheen labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle. ujeedada wadatashiga ayaa ahaa sidii wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya xog buuxda ay u heli lahaayeen baahiyaha ka jira dowlad goboleedka Hirshabelle. xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed Mukhtaar Tuure ahna gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee qorsheynta baarlamaanka Hirshabelle iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee maamulka Hirshabelle Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin waxay ka warbixiyeen waxyaabaha u baahan in wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya wax kala qabato maamulkooda. baahida u badan ee aan raba in aan sheego waxa ugu badan oo annaga aan u baahanay wax nala qabto webiga oo aan ku laba celihayo webigu nimco ilaahay noo soo diray waaye haddana khasaaro ilaahay noo soo diray oo ilaahay ummadatan oo camalka xum ay sameynayaan oo asaga nagu camal weydiinayo waaye waxaan rabnaa wasaaradda qorsheynta shaqada ugu horeysa ay qabanayso inay nooga qabato webiga waxaan u baahanaa caratuur waxaan u baahanaa dhexdiisa meelihii laga qodi karo in laga qodo annagu beeraleeyana sidaas darteed beeraha gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ku yaala boqolkiiba boqol shacabka ku nool waxa waaye waa tacabley waa annaga waxaan ballan qaadaynaa intaas haddii dawladda dhexe aan ka helno in gobolada kale loo beec geeyo wax allaale wax annaga aan soo saarno oo thimar ah in amniga la xoojiyo in amniga la adkeeyo si loo helo kaabayaashii dhaqaale ee u baahnaa macnaha ishii stateka in la hago siyaasadda loo dhan yahay guddiga iyo aniga oo macnaha ii sheeg matala macnaha wasaaradda qorsheynta Hirshabelle waxaan ka wada midaysannahay hingaada ah inaan iib geyno bulshada Hirshabelle waxa ay u baahan tahay waxaan ku faraxsanahay team aqoon-yahano ah expertise ah inay noogu yimaadeen dowladda dhexe ee wasaaradda qorsheynta qaranka ayagoo markaa baahida aan qabna nala wadaagaya annagoo ka faa'iidaysanayna macnaha isha experience-ga ay noo keeneen annagoo u dhiibayna message-ka aan ka wadno macnaha isha dadkayga iyo macnaha isha deegaanka aan ku noolahay. dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Asad Yuusuf Qanyare ayaa sheegay inay qaateen codsiga labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle. maanta inta waxaan ku yeelanay kulan oo aan la yeelanay laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta runtii waxaa ka soo baxay qodobo oo aad iyo aad muhiim u ah oo ahmiyad u ah gobolkan ayagoo matalayo dadkii Hirshabelle ku nool iyo ummadooda sida haddaba hore u maqasheen waxaa ka mid ah amniga in la suujiyo waxaa kaloo ka mid ah webiga ama biyaha si guud ahaan sida loo maareyn lahay waxaan idin sheegaa inaan qaadanay taladiina oo aan ku soo dari doono qoraalka oo soo socda hadduu Ilaahay yiraa wareegan waa wareega koowaad wareega labaad aan isku soo noqonaynaa anagoo wixii soo qornay waa idin soo bandhigaynaa haddana taladiina insha Allah idin soo weydiisanaynaa. kulanka wadatashiga qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad ayaa qorshihiisa wuxuu yahay in la wada gaarsiiyo dhammaan maamul goboleedyada dalka. Ibrahim Ali Nuur TV Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar.